إنتاج الشبل تقدم. قولك الآن ربنا هذا كبر الرجية وحاوي طريقة علمه أنا واحد بدن كفهنتان وتكبرتان واحد بدن بعد باهنتين waxaad u baahan tihiin waxa manhajka la yiraahdo cilmiga la baranayo waa guri jaranjar la fuulayo way intay boodo korka kama dhici karto waa lugooyo jaranjar marka la fuulayana waxaa si tartiib loogu sameeyay in si tartiib saad ugu socoto halkii sareed u socotay aad gaadho manaahijtana waxaa loo sameeyaa tabaqadan dheer ee la fuulay aqoonta ah jaranjaradaad fuuli lahayd ee midba midku u dhiibi lahayd way haduu qofku aqoontii manhajkii saxda ahaa ka lumo waqtiguna waa ka dhuma waxna ma barto mar dhaxdaas ahayd baa wuxuu noqdaa dad badan oo soo baxay oon culumana ahayn caamana ahayn kuwaas adduunka waxaan ku warnamayo dad culimo caamo ah baan rogay ninkani manhaj wax kuma baranin laakiin kitaab badan buu dhageystay ka halkaas uu ka bilaabay ka halkaas uu ka galay ka halkan uu ka maray meel kale uu ka akhristay muxaadaraad badan buu dhageystay waxba isku dhaxyaacan aan habaysnayn maskaxdana cilmiga hadaan manhaj lahayn waa guri aan alaabta la habaynin way waxba ma qaado هذا هالكن علابتي يا بوكتي يا دركي يا هالكا كودا دحداديسو وهذا waxaa baahata seed uga dhaxili laakiin haddii intaad khaanada geliso waxaad u baahnayd durba waad heli buugtaad u baahnayd laakiin boqolkii buugada isku dhaxyaaciso guriga alaabta iyo dadkaba wuu qaadaa laakiin dharkii iyo boorsooyinkii iyo buugtii haddaan dhaxdiisa ku daadino meena qaadaya waxaan u baahnay in ka heli maysid waxana ma qaadayo maskaxan cilmi manhajaysan la raacinin waxbana ma qaado wixii galayna lagama dhaxelo ku dhaxdhuma dadkii sidaas ku dhacday markii dambe wuxuu arkay waxana ma hayo waqti badan uu geliyay kitaab kasta waa u yaala laakiin labada juz hore waa duug suu dhageysanaya kuwa dambana laba taaban Bukhari uu dhageystay 40 ma yaqaan marka mushkilada haysata maxay tan haga haysata maxay ahayd markii dadkii wax la barayo 40 kuma akhriyi karo Bukhari-na uu dhageystay dad tiraado wareede Bukhari-ga iga qayb dadka 40 kan qaban kaama qaban karo dad tiraado okay kuwa Bukhari-ga ana qaban kuwa 40 iga qaba kaama qaban karo laakiin mas'ala hadii la weydiiyo wuu maqlay laakiin meel ay ka dhaxtaa la maskaxdii leen ma habaysnee ma soo heli karo markaad bilowda laakiin aad ka hadasho uu garan wata qofka hadla uu qiimeyn yaqaana wax waa naqdi yaqaana laakiin isaga wax ma yaqaan haddana waa ninkaas waxaan oo dhan waa dhageystay uu qiimeyn kara waxaan masalada markaa bilowda uu garan maxaa haysta mushkiladda guri wax lagu dhaxyaaciyo maskaxda intuu ka dhigay buu ku dhax tooray masaladii ilaa aad adu bilowdood u soo qabato ma heli karo markaad bilowdana waa garaa ku leeyahay marka waa dadkii markii dambe intuu daalo hal wax bay ku fiicnaadaan wixii oo dhan horta waxay u bedelaan fadhi ku dir islaami u bedelaan wixii soo dhaw fadhi ku dir islaami muxuu noqdaa marka 10 ma dhageysan karo muxaadara ma dhageysan karo mana bixin karo ma soo jeedin karo kuwa waxa looga faa'iideystaa raggan aanu sheegay abaabulka iyo agaasinka iyo isku dubaridka iyo barnaamijka waardiyihiisa iyo dadku markay faa'iideysanayaan kuwaas loo diraa marka dadkan maxaa lumiyay manhaj la'aan baa lumisay manhaj la'aantu taasay leedahay fathul baari buu haystaa sharh sahih muslim buu haystaa tafsiir ibn kathir buu haystaa fulaan buu haystaa balu fiirsado hadda maktabadiisa tagto juska saddexaad ama afraad hadii la gaaro waligii lama qabanin gacan ma taabanin kuwa hore iyo labaadna waa wada duug inta uu dhageystay kala dhaxay kaga tagay manhaj laan baa ku dhacday manhajku jaranjaradana uu ku baraa macluumada aad baranaysana maskaxdu khaanada ka dhiga mid walba meesheedu galiya hadhow midaad u baahata tartiib baad la soo bixi maktabada Soomaaliya kutubta intii islaahba marka la israaciyo kitaabka durbo waad heli
laakiin mid walba meeshaad ku soo gaadhay ka geli haddii la yidhaahdo kitaabkii 5 juz ahaabaa 5 meel la kala gelin meelaha u doonto ma taqaanid masalada manhajku inaad manhaj raacadaan waa laga maarmaan manhaj si aad u raacdo cilmigii kugu cusba adu ma taqaanid waxaad u baahan tahay macallinku haga manhajkiina intuu arka ku qiimeeyo yidhahdo halkan mar waxaa la yidhaha aqoontu saddexda waa lagu matalaa ninka ardayga ee wax baranaya nin magaalo uusan aqoon yimid buu la mid yahay meel buu u socdaa inuu tago magaalada jidadkeediina ma kala yaqaano wuxuu u baahan yahay cid jidka tustoo tirahdo halkan mar halkaasaad marka tegi saasaad ku tegi laakiin haddaadan cidnana weydiinin magaaladii jidadkeedana aqoonin meeshaad u socotay aad rabta inaad aadda jidkan aad qaadi halkaa markaad noqoto mid baa kula leexan waad la leexan waad socon waad daali meelana gaari maysi sidaasaa ku dhacday dadkan sidaa darteed magaaladaa taqaanaane qof magaalada nairobi yimid meel gaarana xafiis hebelna u socda iyo guri hebel jidadkeediina aan kala aqoonin cid jidkii tilmaantuu u baahan yahay jidkuna waa manhajkii meeshaad u socotana waa hadafkii cilmiga inaad meel ka gaadha aad rabtay tilmaantuna waa qofkii yaqiinay ee ku barayay ee kula halkan mar waxaa kaloo lagu matalaa qof in la daweeyo u baahan jahligu waa cudur xun in lagaa daweeyo aad u baahan tahay dawada ku habboon iyo inta aad qaadan karto takhtar baad u baahan tahay hadduu yidhaahdo may anaa aqaano dawada anaa isu qori anagu baadiyaha waxaan soo gaarnay magaalada markii lagaaga keena dawo kiniin ood kiniinka aan ku arkaadoo qaadanaya waxaan ku dhihi waaw si aadna waxaad war xanuunkaasaa la igu keenay waxa ku hayo wuuni hayaaye adigana isii haddaan aragno qof dawo loo keenay inaan la cunaan jeclaan jirnay kolbaasi wixii loogu keenay anna waanu ugu baahnahay saa sax miyaa dawadaad qaadanayso wakhtigeed qaadan imisaad qaadan qofka xanuunkiisii markuu isbedelo ee dawo muddo qaato inta la jeegareeyo oo la qiimeeyo haddana dawo kale in loo qoro sooma baahna oo tartiib intuu caafimaad ka gaarayo aqoon darradii intaad ka baxayso xilli aad adu iswadaysa ka gaarayso kuura dawadaas in laguu qoro in laguu qoro kan baro kana baro kana baro kan intaa ka baro kitaabka luqadda intaa ka baro maadadaa baro waxaad u baahan tahay marka dambe waxaad gaari har wixii adigu intaad fahanto aad riixan karto ood iswadi karto magaalada saad maalmo markaad joogtay jidadka lagu tutusaba marka dambe intaad barataad adigu kororsataa sooma aqoontuna sidaasoo kaleeta wey saas darteed haddii kale waxaagoo dhan wuxuu noqon wax si qalloocan loo wada haysto si khaldan buu u wada akhrinayaa marka nin aan saaxiibba nahay soomaali ma ahayn baanu meel markasa wada joognay oo carrada gaalada ah maalin duhurkiibuu dumar wuxuu akhriyay anoo xafiis fadhiya cumdatulaxkaam wuxuu akhriyayaa kitaab ah cumdatulaxkaam waa laga yaabaa in badanoo idinka mid waa kitaab fududoo la wada yaqaane xadiidun baa ku dabagadoomay ninkii oo dhidid ku yaalla kurbaysan baa xafiiskii ugu soo galay waan naxay waxaan ku ninka ma xanuunsan yahay war maxaa dhacay nin waxbaa ilaahay tusay buu yihi maanta maxaa dhacay waxaan fiiri buu yihi waxaan gacantii intuu taabtay markaasa waan ku yidhi waxbaan qoranay war akhri war anu afkaygama soo marin karee waxaan fiiri waxaan wuxuu muxuu yahay waa yaabo waxaan waa xadiid la leeyahay fiiri buu بلوغ المرام بوها ما كتاب مركا محس وين يا حديث كيبان فيري وعادي عارك ما حد يبغى يشران كوري هذه آخر يقول واحد وحنقول حديث كمان آخرية هل كان ربتكو واحد شيء يسألون ما حليا ما أرجع يتعبوا واحد كان فيري هل كان ما حد يبغى كوري دي ما يتعب وما أنا وش يقول حنقول محاض ملايسي محاض فهمتي
waxa nabigu kuma hadli karo wiir cayta way caytan waxaad caraatan ka sanab waxaan ku leeyahay caraatan ku tahay markaasuu ka sii daayay waxaan afka la soo marin karin xadiidku waxaa la in yarija axadukum biyamiinihi fii ahlihi aathamuu lahu min an yukafira canha ninku xaaskiisa iyo gurigiisa inuu yimaado isagoo gafuurka tuurayo cadhaysano waxaan ku dhaartay inaanan la hadlaynin oo afka tuuro oo sii jeedsado oo dhaartaydii ma jebinayale baa ka dembi badan inuu dadkiisana la hadlayo reerkiisa iyo xaaskiisa kafaara gudna sameeyo dhaartaa jebi kafaara gud samee taasaa kaaga dembi yar dhaart waan dhaartay oo afkaan tuuraya xadiidku intaasuu ka hadlahay yarijadii nin walaja bay la noqotay biyamiinihiina gacantii dhaarta ahaydna gacan midig bay la noqotay ninku xaaskiisa inuu gacanta midig geliyo saasay la noqotay ninka waxaasee u dhihi karaa nabigu waxaan inaan naxdin iyo qosol baan u dhexeeyey marka mar waan farxay oo inuu soo marayo intuu i dhaafo haweenkii u tago inuusan waxa akhris uga dhigin baan la yaabay baan ku farxay marna waan naxayo war ninkan sidan ah ee dad haddana wuxuu akhriyahaya talow kani to muxuu fasaadin doonaa baan isiri waxaan ku ihi war saas meehee meeshan fiiri baabul aymaani dhaar wey yamiinihii gacan midig maaha dhaar weeye yalijana min walaja meehe laja uu ku madax adaygay wey inuu ku adkaysta dhaartii weeye ninka intuu naxay oo kursigii dib ugu fadhiistoo qaboobay iyo wuxuu yidhi cashirkii maanta ma akhrin kare xaalad baa ku jiraaye ha layga fasaxo xaalad waxaa ku dhacay inhiyaar oo isku dhex yaaca waxoogay markuu joogaba waa shahaadan markii dambe waxbaa kugu dhacay ninka shaahu keenaa ku maxaa kugu dhacay waxaanu is arkaa buu yidhi anigoo intaan tegay meeshii wixii sheegay waxoogay markaa joogaba ama wixii yidhi baa ii soo bixi buu yidhi waryaa warada waxaan dhehi lahayd maxaa ka dhici lahaa halkan nairobi bay ahayd waanahu tacaala jadu rabbina may 90kii ka hor bay ahayd dhowr 87 80 meelahaas ahayd waanahu tacaala ilaahay jadu rabbinaa rabbigana awowgii weeye jadu rabbinaa iyo cadamatu rabbinaa wey marka haddii aad tiraahdo anaa iska soo akhrisani jadu rabbinaa baad akhriyi daadada maxaad ku faa'iidi waxaad u baahan tahay cid wax ku barta ilaa aad gaadho heraad u aad iswadi karto aqoonta ama luqadda ay ku qorayd ama ha noqoto luqaddii cilmiga ama waxyaabihii saamaynaya saa darteed manhajkii jaranjaradii iyo jidkaad maraysay sheekh iyo macallin ku tuso ood ka qaadataad u baahan tahay haddaad tiraahda kitaab baan iska akhrisanay anigu anaa isbari hataa carabiga haddaad taqaano ninka carabiga si kasta u yaqaano luqadda sharciga hadduusan aqoonin ma baran karo salaad ducuu u yaqaanaa salaad allah akbar inay ka bilaabato ee salaamu calaykum ku dhammaato waa inuu kutubtii cilmiga fiqiga akhristo zakaad in la isdaahiriyo u yaqaana laakiin xoolay ka godaa intaa markay gaaraan waa intaa waa intaas maaha luqaddii carabiga caadiga ahayd maaha culuumtuna cilmi kastaba eray bixin iyo luqad gaaru leeyahay haddii kale tawmal xakiim oo kale unbaad wada noqonaysaan tawmal xakiim ma taqaanaan nin intuu kolba kitaab qaada iska daalacda iska raaraacan jirayoo isagoo wax iska akhrisan jiro cidna wax barin buu ahaa wuxuun soo akhriyey qofkii ilaahay dartii wax u bixiya ama ilaahay dartii dadku inay wax u bixiyaan sadaqa ku booriya ajir buu ka helayaa laakiin ma garanaya waxyaaba aan sadaqa gelin baa jira ma yaqaan dee adduunku dhibkan dhallinyaradu ay sheeganayaan wiilashii iyo gabdhaha ahee gabdhihii iyo guurkiibaa gabdhihiina lagu adkeeyadii weligeed way soo jirtay isagoo masaajka ku soo socda ba niman dhallinyaraa dhexdaa u istaagay wuu wacwacdiyaa dadka marka waxay dhaheen sheekh dhib baa na haysto waana lagu adkeeye guurkiiyo guuduqaydii iyo gabdhihiiba way nagu adkeeyeen masaajku ka istaagay ilaahay ka yaaba wiilashii way rafaadeen gabdhaha lagu fasaxuu yidhi gabdhihiina wuxuu yidhi ilaahay ka yaabo
wiilasha ku sadaqaysta hadda guur iyo meher ma aha isku fasax oo ku sadaqaysta ajir baad ka helaysaa ها وحلا صدقيست أجر بالله هلا لكن ما تشرك على صدقيستا نكاسي هدي وشاخ يران لها مركي صدقة لو شيء يبقى لو شيء لا أنت صدقته وحنا ما يكش حرام يكش نك هذا الله بضم على قسم أيوه مركي الدمر بولهان ترى الوفول الشريو دمر كي بعد قبيه باليري مو غشل طبع كسمين يدي قال حمار الحكيم توما لو أنصف الدهر كنت أركب لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب وحيل هذه عدالة شرته نكن دوشة إذا صارا أروينا دوشة كفورة يهيد ويسوي حبارة يقاض محايا لي أنا جاهل بانا حماقنا لكن وان السوق هنا نحقون لكن سوى جاهل أن السوق هنا نحقن اسمه ذي أنا أبدا بقول أقول الله أنت وان قرصنه سوى جاهل أن أقيم بلونه جاهلية لما الجاهلية ومركبة هيسته لما جاهلني بقى سقوط تجايو مرنا ما يقان مرنا ما يقانين سنقونين نحن وحي نكاس سميو تلماميو وحلو مرة عمل علوم بغير شيخ أضل عن الصراط المستقيم وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنة النعيم أغرب شنوك الدور يا وزيردي marka waxaan rabaa inaan yiraahdo cilmigi si aan fahamku kuugu qaloocanin si aadan wax khalad isu fahansiinin si aadan meel xun uga dhicin intaad mustawa aqoon ka gaarayso garab qabashaad u baahantay ilmaha yarka Soomaaliga ku socodka baranayo hadii keligii la sii daayo jaranjarada uu ka dhiciyo afku dhagax ku dhufan waa la qabqabtaa waa ilaa uu ka gaaray xilli uu si fiican u socon karo markaas la sii daaya mar baad gaari doontaa هذا علمي جاي كتبتها أنت ضحك شو مسألة ربط الله صوب بحيث علمي جاي كورس سكرت لقدي نحودي ميل بعد جاري كذب هذا يسوى ذكر فقهي ميل بعد جاري كذب لكن أنت هراء صعد برد كي أو كليته ويقعد صلاة سد هذا اللي سوقاته وعد كوفي مسألة كاخل دمي والوتوسين هالك مر ناشا الماء كمان كانت صعد بريس بكل صعد وحضرك ميل ده حواد كل حين meel jaranjara la fuuli waad istaajin lugta qaad saar baad in Soomaa hadii kale horay buu dhici geed buu ku dhici madax ku dhufsan intu socod bartana isaga orod jaranjarada ku fuuliya kaga day maalinka dambe cilmigan idinkaaba orod kaga dhax bixi doona insha Allah taala laakiin talada macallinka iyo toosintiisa inaad qaadataan baad u baahantiin warka waa dheereeyay wuxuu dhan hal mar wada dhahdii lagu yiraahdo moogtay waa markay la hadlayo waxay ku fiican tahay in wax lagu xadido hadii lagu yiraahdo iska hadal waxa hadalkuna ducalaan buu tarmaa ilaa hadalka ii badi wax yiraahdo malaha hadana wuu wada bataaba